maanta waxaanu ka sheekayn doonaa shishyaankii loo aqoon jiray shishyaankii Baghdad ama Juba. wuxuu ahaa shishyaan aan qofna garaneyn muuqiisa iyo heebtiisa toona. wuxuu dilay in ka badan 240 askari oo Mareykan ah oo dalkiisa ku soo duulay, wuxuuna cabsi iyo walwal ku abuuray ciidankii Mareykanka ee ku sugnaa Baghdad. shishkiisa xirfadda sare leh ayaan marna la gafin meesha uu bartilmaameedsaday. Ameerikaankuna way awoodi waayeen inay gartaan qofka uu yahay iyo sidoo kale meesha uu ka soo ugaarsanayo. dadaal kasta oo ay ku baadi goobeenna waa ay ku guuldareysteen helidiisa, ayaga oo ku tilmaamay markii ay ku guuldareysteen inuusan qof kaliya ahayn ee uu yahay koox badan oo shishyaan ah. wuxuu ahaa shishyaan ciidankii Mareykanka ee ku sugnaa Baghdad ku noqday filaar dhunta kaga taagan. bishii November sanadkii 2005 ayaa baraha bulshada la soo dhigay shishyaan xirfad sare leh oo madaxa ka tooganaya ciidan Mareykan ah, ayaga oo dhex taagan qayb ka mid ah magaalada Baghdad. qofkan ayaa markiiba soo riday hal xabad oo kaliya ah, isla markiina la helaya askari ka mid ah askartii meeshaas joogtay. mid ka mid ah ciidankii Mareykanka ee lugta xilligaasi ka howlgalay Baghdad ayaa wargeyska The Guardian wareysi uu siiyay ku sheegay, markasta oo aan sugno inuu na soo liifo si aan u ogaano meesha uu joogo waanu weynaa, annaga oo aan ogeyn ayuu mar walba jiha cusub naga soo galaa. meel kor ayuuna ka toogtaa mid ka mid ah askarteena. qiyaas ahaan 200 oo mitir meel ah buu ka toogan jiray askarta Mareykanka, asagoo ka abaarayo kaliya qaybta sare si uusan askarigu dhaawac u noqon ee uu meesha ugu nafbaxo. waxaa bartilmaameedkiisu uu ahay qoorta, feeraha, dhinaca wadnaha xiga iyo madaxa. si kasta oo ay u difaac u xirteen ama ay iskugu dayaan inay fahmaan qorshihiisa, waa ay heli waayeen qofka uu yahay iyo halka uu ka soo ugaarsanayo. ciidanka Mareykanka ayaa Baghdad ka fuliyay howlgal caan ah oo loo bixiyay howlgalkii Juba, kaasoo markii dambe magac naanays u yaqaanaan noqday ciidankii Mareykanka oo shishyaankii ciidankooda leynayay. waxa ay howlgeliyeen taangiyo iyo diyaaradaha helicopters ah si ay dusha uga ilaaliyaan ciidanka, si gaar ah xaafadaha Sunniyiintu ay degan yihiin oo uu marar badan kaga toogtay askar Mareykan ah. waxay ilaalo adag ka qabteen dabaqyadii aagaas ku yiilay, waxaana goobo badan la saaray shishyahano ka tirsan ciidanka Mareykanka. ciidankan ayaa ahaa dad aad u xirfad sareeya, fahmi karana markiiba meesha xabadda shishka ah laga soo ridayo. maalintii oo dhan askartaasi waxay ahaayeen dhaqdhaqaaq la'aan, habeenkiina waxay isticmaalayeen qalabka habeenkii lagu howlgalo. muddo 24 saac ah ayuuna howlgalkaas socday, balse ma dhicin in la helo Juba. dhamaadkii sanadkii 2005 ayay meesha ka bixeen dalilkii kaga imaanayay ciidanka Mareykanka shishka, waxaana saxaafadda reer galbeedka ku faaftay in qofkaasi la dilay. balse bilowgii sanadkii 2007 ciidanka Mareykanka oo markaan iska ilaabay Juba ayaa la kulmay dhacdooyin isxiga oo cabsi ku beeray. waxaa xaafadaha dhinaca galbeed ee magaalada Baghdad lagu dilay dhowr askari oo Mareykan ah qaab shish ah. markii ay fiiriyeen qaabka toogashada, waxaa u soo baxday qaab la mid ah qaabkii uu adeegsan jiray Juba. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay inaysan hawshaani ahayn shaqo hal qof oo kaliya ah qabto, balse Juba uu yahay dhowr qof ama koox isku xidhan oo shishyaan ah. hal xiraale ayayna ciidankii Mareykanka ku noqotay inay fahmaan qofkaani. halkaas ay maanta inooga eg tahay sheekadaani. fadlan haddii aad nagu cusub tahay YouTube-keena subscribe saar oo si share gareeyo asxaabta la wadaag si ay asxaab badan noogu soo biiraan. mahadsanid.